ku-xigeenka wasiir dawlaha gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe Sheekh Cali agaasimaha dhammaan madaxda kale halkan fadhida waad salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh runtii aadan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo meel looga hadlayo dhaqaalaha Soomaalida runtii waxyaabo badan oo annaga muhiim noo ah aan haddana xiisayn baa jira dhaqaalaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la rabo runtii inaan ku baraarugno adduunka wadamada adduunka qofaa laga yaabaa inuusan xitaa aqoon duqa magaalada magaciisa inuusan aqoon waxaa laga yaabaa wadankiisa inuunan aqoon hadduu wadan kale ku duulo laakiin haddii la yiraahdo 1% canshuurta lagu daray inuu banaanka istaago mudaaharaad haddii la yiraahdo maxay ahayd budgetkii waxa laga jaray macallimiinta inuu mudaaharaado waxaan xusuustaa tuulo kamid ah wadamada adduunka meel aan mar joogay in la yiri hal xildhibaan oo dheeraada la idinku darayaa sababtoo ah xildhibaankii hore shaqada ku badatay marka waxa la yiri xildhibaan dheeraada la idin siinaya markaas ay mudaaharaadeen oo ay diideen waxay yiraahdeen qarashka xildhibaanka labaad ku bixi doona macallimiinta ma la siiyo annaga marka waxyaabaha muhiimka ah maxay ahayd inay muhiim noo noqdaan la rabo waa waxyaabaha taabanaya nolosha qofka Soomaaliga ah runtii wadankan waxyaabo iska soo horjeeda ka jira midda siyaasadda waa naqaanaa oo waa wadan dadkiisa ay midaysan yihiin diiniyan midab ahaan ummad ahaan haddana siyaasad ahaan maxay u qaybsan yihiin waa wax isburinaya oo siyaasad ahaan qof walba uu yaqaan waa su'aalo u baahan in la xalliyo laakiin sidoo kale waxaa jira mid dhaqaale oo noocaas la mid ah dal leh badda adduunka ugu weyn dal leh badda Afrika ugu dheer bari ahaan marka loo fiiriyo dal leh maxay ahayd kheyraad fara badan dal leh ummad ku wanaagsan ganacsiga haddana runtii dakhli ururintiisa ay boqolkiiba 3 tahay shaqo la'aanta ay marayso heer aad u sareeya ee la leeyahay musuqa kaalinmaha ugu horeeyaad ku jirtaan runtii waa wax ay adag tahay in aan ka jawaabno laakiin looga baahan yahay in aan ka jawaabno fursado badan baa wadankan u soo socda mid agaasimaha hadda ka hadlay oo ah in amniga wax laga qabtay midda labaad oo dalkan inuu gali doono marxalad ka dambaysa deen cafinta iyo mataqaana inaan leenahay dhalinyaro fara badan oo xirfado leh oo ay qasab tahay inay kaalin ka qaataan horumarinta dhaqaalaha intaas oo fursadood annagoo leh waxaan u baahannahay inaan ka fikirno sidaan uga faa'iidi lahayn adduunka dhibaatooyin dhaqaale way soo mareen dad badan baa ka qayb qaatay sida looga saari lahaa dad baa guryo dhisay kuwa buundooyin dhisay kuwa xoolo dhaqay kuwa wax badan sameeyay laakiin dadkaas lagama hadlo waxaa laga hadlaa oo kaliya dadka fikirka dhaqaalaha lagu hormariyay lahaa buugaagta markaad fiiriso taariikhda markaad fiiriso waxaa laga hadlaa oo kaliya Keynes iyo Kamal Derwish marka laga hadlo Turkey wadamadaas waxaa laga hadlaa oo kaliya ma dadkii buundooyinka dhisay waxaa laga hadlayaa dadkii fikirka lahaa golaha dhaqaalaha qaranka kaalintiisu waxay noqon doontaa in wadankan uu ku yeesho thought leadership wax la yiraahdo inuu hogaamiyo fikirka dhaqaalaha ee wadankan lagu horumarin karo golaha dhaqaalaha qaranka waxaa madax ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah mudane xasan sheekh maxamuud waxaa xubno ka ah 15 wasaaradood oo ay wasaaradda maaliyadda ka mid tahay iyo bangiga dhexe intaas oo dhan marka la isku daro waxay leeyihiin hoggaanka golaha dhaqaalaha qaranka annaga ka khubar ahaan ka maxay ahayd dadkii afkaartaas curin lahaa marka laga soo tago hoggaanka waxaa laga rabaa ay ku jiraan xubnaha meeshan fadhiya wasaaradahooda in ay kaalin muhiim ah ku yeeshaan sidii afkaartaas loogu bedeli lahaa wax micno leh ummadda noloshooda wax ka bedela golaha dhaqaalaha qaranka wuxuu hoggaan ka yahay barnaamijka la yiraahdo Vision 2060 oo madaxweynaha dhowr jeer ka hadlay oo ah boqol guurada Soomaaliya 2060 marka la gaaro wadankan sidoo way kaan doonaa muxuu noqon doonaa waxaa ka dhiman 38 sano dadka waxay isleeyihiin waxa laga yaabaa 38 sano aad bay u fogta intaan burburka ku soo jirnay aan wadooyinkan burburinayna 32 sano inta hadda ka dhiman waxaa loo baahan yahay wadankan marba waxa lagu maamuli jiray wax la yiraahdo compact New Deal compact
waa laga soo tegay qorshe aan leenahay mid oo la yiraahdo qorshaha ee horumarinta qaranka kiiba haddana qorshihii sagaalaad buu noqday wadamada adduunka qorshahooda aragti buu ka yimaadaa annaga qorshahan aragti kama yimaado runtii hadda waxaan u soconnaa wadadii ahayd inuu qorshaha 4 sano ee dalkan mar walba loo isticmaalo sidii loogu horumarin lahaa inuu ka yimaado aragti muddo aragti laga fekeray oo hoggaan leh oo ownership leh oo fikirkeeda meel uu ka yimaaday la yaqaano oo ku salaysan mudnaanta dalka marka waxaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantiina aan maxay ahayd idinka codsanayaa number 2 horta inaad garataan in dhaqaalaha uu yahay wax mudnaan leh oo mudnaan u leh qof walba siyaasadana runtii iyo waxyaabahan kale oo annaga muhiimadda aan u aragno inuu ka horeeyo annagana waxaan qaadan doonaa kaalintaas marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin